kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal gebi ahaantiinba ku soo dhawaada janalka Maxamed Yumbi. Waxaa mar kale soo ifbaxaysa warbixin ku aadan markabkii gujiska yaraa ee ay saarnaayeen 5 nin ee maalqabeenka ahaa ee u dalxiis tagay markabkii hore ee Titanic ee ku burburay badweynta Atlantic-ga oo iyagu maalmahani baadigoob lagu guda jiray ayaa warar kala duwan soo baxaya iyo sidoo kale in ciidamada Mareykanka ay shaaciyeen geerida raggaasi. waxaa la helay qayb ka mid ah markabka. warbixintan ayaan gudaha u gali doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo, balse marka ugu horeysa ku soo dhawow janaalada iyaga dhanka TikTok-ga iyo sidoo kale YouTube-ka. noo share garay, like-na inoogu qabo, sidoo kalena asxaabta kale gaarsii, sidoo kale copy link-gana inoo taabo, waadna ku mahadsan tahay. ciidamada ilaalada xeebaha dalka Mareykanka ayaa Khamiistii oo shalata ahayd sheegay in ay dhinteen dhammaan 5 qofood ee saarnaa gujiskii yaraa oo badda quusay, kaas oo ilaa haatan aan la ogeyn meel uu jaan iyo cirib dhigay xilli uu marayay meel u dhow haraadiga markabkii caanka ahaa ee Titanic oo yaala gunta hoose ee badda. ciidamada ilaalada xeebaha ee Mareykanka oo shir jiraa'id qabtay ayaa sheegay in geeridan ay ku wargeliyeen eheladii rakaabka saarnaa gujiskaasi, kaas oo si aad ah loo baadigoobayay maalmihii aanu soo dhaafnay. shirkadda iska lahayd gujiskaasi yar oo lagu magacaabo Ocean Gate ayaa qoraal soo saartay, waxayna ku sheegeen in gujiskaasi yaraa ay saarnaayeen ilaa 5 qofood oo uu ku jiro maamulaha shirkadda oo lagu magacaabo Stockton Roche, taas oo loo badinayo in ay dhinteen dhammaantooda. shirkadda Ocean Gate wax faahfaahin ah oo intaasi ka badan maysan ka bixinin, gaar ahaan sida ay ku ogaadeen in ay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa gujiskaasi yar ee badda hoosteeda quusay. gujiskaasi yar oo lagu magacaabo Titan ayaa lahaa kayd oxygen oo gaaraya ilaa 96 saacadood oo ay ku noolaan kareen dadkii iyagu raacay ee u dalxiis tagay markabkii hore ee Titanic ee badda gunteeda hoose yaala, taas oo ay ku ekeed subaxnimadii ama duhurnimadii Khamiista ahayd, walow saacadaha dadka qaar ama website-yada qaarna iskhilaafayeen oo ay dhahayeen qaarna 12 geeska Afrikada bari, qaarna ay qorayeen in ay ku ekeed 2 duhurnimo ee geeska Afrikada bari, in ay ku ekaan oxygen-ka ay haysteen uu ka dhamaanayay. taa dabadeedna waxay tahay in oxygen la'aan aysan ku jiri karin badda. shirkaddan ayaa caan ku ahayd in dadka xiiseynaya dalxiis ahaan ay ugu dirto in ay soo arkaan haraadigii markabkii caanka ahaa ee Titanic, kaas oo badda gunteeda hoose yaala, safar dheerna ay u marayaan oo halis aad u fara badan. markana waxaan rabaa in aan warbixin guud idinka siiyo doonta caynka ay ahayd ama markabkaas yar ee gujiska ah ee Titan lagu magac daray, intuu leeyahay inta qofood u qaadi karo ayaa warbixintana sidoo kale idkugu dabaqaya haddii Ilaahay raalli ka noqdo. doontan waxay ka samaysnayd ama ay ka samaysan tahay dhuun yar oo dhuuban, taa oo loogu talagalay inay qaado 2 qofood oo kooban oo kaliya in muddo gaabana. dhererka Titan waxa uu leeyahay 6.7 mitir, balaciisuna waxa uu ahaa 2.8 mitir, jooggiisana waxa uu ahaa 2.5 mitir sida laga soo xigtay shirkadda soo saarta ee Ocean Gate. matoorada ku xiran oo ahaa 4 matoor waxay siin karaan xawaare gaaraya 5.5 kilomitir biyaha hoosteeda saacadiiba, laakiinse dusha sare uma soo saari karaan. wuxuu leeyahay hal badhan oo laga shido, waxaana laga hagaa oo steering u ah gacanka qalabka lagu ciyaaro ciyaaraha kombiyuutarada ama PlayStation-ka oo kale, kaas oo qaab macmala loogu adeegsanayo. shirkadda waxay sheegtay in la fududeeyay wadida doontan oo aysan u baahnayn dadka in ay wadaan dad khubaro ku ah kaxaynta doomaha caynkaasi oo kale ah. waxaana ku xirnaa nalal loogu talagalay dadka teendooyinka ka dhista ee dalxiisayaasha ah meelaha baadiyaha ah. nalalkaasi ayay ifsanayeen. kulli waxaan filayaa warbixintan in aad ku qanacday ama aad wax ka ogaatay markabkii yaraa ee Titan lagu magacaabayay ee 5 nin ee maalqabeenka ahaa ee tikidkoodii aakhiro lacaga fara badan ugu goostay ay ku geeriyoodeen. fiidiyoyadan waxaan ugu talagalay in mar walba aan idinla socodsiiyo wax walba oo soo kordha oo aan jeclahay in asxaabta igu xiran ay ka faa'iideystaan haddii Ilaahay raalli ka noqdo. warbixinadan waa soo badin doonaa insha Allah. sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.